ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton ayaa sheegay in ujeedada shirka London ay tahay in dawladda cusub ee Soomaaliya la siiyo fursad ay ku soo bandhigto waxyaabaha mudnaanta u leh iyo in laga wada hadlo iskaashi dhexmaraya dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka. Provide an opportunity for the new government of Somalia to set out its priorities, and then therefore to be a discussion about the partnership that needs to happen between Somalia and the international community. Masar Keaton oo waraysi siiyay barnaamijka tubta nabadda ayaa sheegay in kastoo ka jawaabista abaartu ay tahay ahmiyad weyn xilligan, haddana in shirka looga wada hadli doono maalgelin lagu sameeyo dhaqaalaha Soomaaliya si aysan mar dambe u dhicin abaar weyn. In a number of areas. And those areas include not just drought response, which is the top priority at the moment, but also trying to invest in the economic future of the country so that we don't have another drought. Waxaana sidoo kale sheegay in shirka looga wada hadli doono qaab dhismeedka mustaqbalka ee ciidamada amniga dalka Soomaaliya uu yeelanayo. Masar Keaton ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shirka looga wada hadli doono heshiisyada dhexmaray dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada sida awood qaybsiga, canshuuraha, qaybsiga dakhliga iyo kheyraadka dalka uu leeyahay, iyo sidoo kale sidii loo gaari lahaa doorasho qof iyo cod. Ergeyga qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in heshiiska iyo qaab dhismeedka hay'adaha amniga ay muhiimad gaar ah leeyihiin si loo helo ciidamo boolis ah, military iyo sirdoon dalka oo dhan ah, qof walbaana uu aamini karo. Waxa uu xusay in qaab dhismeedka amniga uu hoosta ka xariiqayo xiriirka dhinaca amniga ee ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka ah uu yahay hogaamiyaha qaranka Soomaaliya, balse uu ku faraxsan yahay in madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyagana lagu martiqaaday shirka London, taasina ay tahay mid aad u muhiim ah. Masar Keaton ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in shirka magaalada London sidoo kale looga wada hadli doono qaabka loo wajahayo baahida iyo dib u eegista lagu sameeyo dastuurka dalka si dhab ahna loogu qeexayo waxa uu noqonayo xiriirka ka dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada dalka. What they want to achieve and the international community will commit to supporting Somalia in these areas. Masar Keaton ayaa waraysigan waxa uu ku soo beegay maalin ka hor furitaanka shirka London oo sida uu sheegay ay wada gudoomin doonaan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Farmaajo, madaxa midowga Afrika iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo dawladdiisu ay shirkan martigelinayso. Shirka London ayaa waxa uu sheegay Masar Keaton inay ka soo qayb galayaan ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga, xogayaha gaashaandhigga dalka Mareykanka iyo marti sharaf kale oo caalami ah oo aad u fara badan. Cabdiqaadir Maxamed Faarax Dulyar, Hon Cable TV, Muqdisho.